ما أنا هذا ودب جوا كمهرة ها مكهرة إلا أو أريتها سمير في عمر صبت أنا أنكولا يا طبعا ككون يا oo hooyada ee dalbato oo maxkamadda daayir ay u dhaayaan waa bixinayna maamo basqaalka kun aysan waxba ka jirin ana wax ku cadeynaya ana daayir waa wacay micnaa inay dhashaa soo bixi leeyahay cadeyna soo bixi leeyahay ani maam faragina inay dhasho ku cadeyn fiiri qof oo aabiyo xamar joogo oo lacag kambaniga xamar ay taalo $600 diyanay oo ku dhii waay mar oo noo fududeen waay maam farago 10 kun rabta sameynaa أما طبعا كنا دلبرت قف طبعا كنا صوت دلبري سيال كنا وهايا أنا هوي سكوا أرض بس وأنا والله يا بناي أنا وجيت كي ما ورتو حكودين أنا وجيت كماش أتقول هو آي دينا إن لا يقعدني هو إذا مسكوا كان بان أنا وجيت كلا الله هاي يدن كلا الله هاي مجري أنا وجيت كأقول كداير أتقول حي ودينا أنا ذكر أمتي مركز شركة الدراما يسكن قناي maamada daraamay ka dhigtay oo DNA waa lacag qoladan sidoo kale marka waxa waa qof dhanac xuquuqiisa ku baaba'ay marka qoladan daayir waxba soo wadaan maamadan wax ma soo wado kiiskan maamada ayada adkeys haddii maamada dhiileed ani waxba lacag ma rabo waxa laga yaabaa qolada inay fuudeen lahayn daayir iyo xoolaha waxyaabaha yararka inay naga caawin lahayn ani wax ay tixgeliyeen ani wax ay xishmay dawladda Soomaaliyeed ugu yaqaan xishmayso qolka hay'adaha jaal protection ma xishmayna هذا هي ماتيريال انا واحد لا سو خرير مانا wax arinta igala hadlay ma jirto marka adii maxkamadda daayir yani waa iska wareystay maana qof beel intuu yimid saadii hadii wareysanaysa waana la warwareystay waa lagu kala tagay maana waxba lama qaban ana ujeedkayga ma horta waxa ku weydiin ana ujeedka meesha u tagay oo aay DNA in laga qaadanay hooyada isku keen baan ana ujeed kala aan lahaay idan kala aan lahaay ma jirin أنا وجدت كأقول كداير وتقول حي ودينا أنا أتذكر أمتي أنا بكوسفيري هو يدا وجرناي أنا هو يدا الدار إنه عبارة أمتي هو يدا وكساي غير كذا وكساي لكن قال هذا جري قال كاس إنه نجا عاوية ودينا كان نجا عاوية دينا دينا أنا واجا عاوية ها إبن حتى دلبك هو يدا إيش يا تتبقون والله سوء عروري حتى hadduu siduu sheegay 9 kun ah inta hawshii ma sameeyo inuu xataa lacagta bixiyo oo DNA la sameeyo DNA la sameeyo oo lacagta bixiyo DNA la sameeyo haba anay ma qaban maxay tahay sababtoo ah lacagta u dalbatay meena lacagta u dalbatay waa xujo ma taqaan meena ma kiiska ku cad yahay meena wixii ku cad oo kiiskaygu ku cadeed haddii qaabka ugu cad waxa isku ekaanshaha Soomaalida dhinaca isku ekaanshaha fiirisay dhinaca wareysiga iyo xogta iyo qaabka uu hadlaysay la fiiriyay ya qaabka ayada uu hadlaysay wax dhan iyo sida dhan ana kiisku ku caday ana ma faragina inay dhasho ku cadeen laakiin macnaa ummadda ku mashquulina iyo dadka lagu mashquulina $10,000 inta la aruuray inta la baxay qaarkood dad bixinayeen macnaa dadka ku jii waa taako macnaa haddii DNA la qaado maamada haddii daacad tahay lacag ma sheegateen hadii DNA haddii la qaadina cadeyna soo bixi lahayd waxa muuqanaysa marka macnaa inay dhashaa soo bixi lahayd cadeyna soo bixi lahayd marka hadda dadku waxa lagu mashquul marka $10,000 la rabaa marka 10,000 inta lagu mashquulsay la aruurina qaarkood baa la keenay marka kiiska baaba'ay marka maamada waxay rabtay kiiska inay ku baabi'iso baahi ama rafaad ama lacag oo rabta ma ahan laakiin kiiska rabta inay ku baabi'iso adii marka daacadka ma marka 10,000 ee leedahay maamada ana alla isi kiiska lagu baabi'ina ana waxaan rabaa inay soo waxba shuruud iyo waxba aysan sheeganin waxba dhibna aysan sheegan sidoo ilaahay ku ogyahay ana ujeedka rabo waxa waaye maamada inaysan shuruud aysan gelin DNA 10,000 ay sheegay DNA-deedana ay ogolaatay fududeyso sida aad u ogashay cid kasta u timaadana ay fududeyso si kiiska u xirna cadaaladna loo helo laakiin marka aad 10,000 sheegatay oo dadkiina isku imaanay mas'uuna aad fiiri haddii maamada ay ogolaatay DNA laga soo qaado ana laga qaado waxba shuruud u soo gelin shaqada ma fududaato
marka adiga 10 kush ee sheegato de waa adkiiski waa adkaana diinadaas ani waxay iga caawi kartaa de maamada heshe oo isyeelano in hay'adda dib feelkaygu aan u helo dokumentiyadeedii la isiiyo kiiskana magdhow hay'adda iga siiso raalgelin iga bixiso waxyaabahaas oo dhan ay fududaana xaquuqdayda inaan helo laakiin haddii maamada ay diido waxyaabo badan adkaanaya laakiin ani waxaan dhihi lahaa warkaaga ku soo laabanaya inaan ka harin sababta ani aan ku dhahayo 10,000 yah oo hooyada ay dalbato oo maxkamadda daayir ay u dhahayaan waa bixinaynaa maalmo 9,000 aysan waxba ka jirin ani wax ku cadeynayaa ani daayir waa wacay wiil cabdinaasir dhaan anaga waa la kornay waxaan ku dhahnay waliyo qaybta aabbaha faadarka aabbii maadaama xamar isla joogo adiga aabbaha oo aan isbaranay yah waa wada joogtiin xamar joogaa aniga maxamar soo ma joogo maxaan dhahay markaa kalbaniyaan soo helnay oo xamar joogo diyaanka fududeynaya weli islaana maama xataa waxay dhigaysa qarashka annaga bixinayno yah marka waxaan ku dhahay daayirow inaan maamada qarashka bixinaysa inaan la xiriirtay si maadaama kiiskaa maxkamadda ku jirto hawshaan aan u gabagabeyno ama adiga wixii aad nagu caawi karta nagu caawiso diyaneeda kalbaniga oo diyaneeda qaadaya waa $600 inaad naga bixisi iyo inaad diyaneedaasi naga caawiyaan maamadaas naga caawiso maama waxay tiri waan idinka caawina aan la xirin intaba ma sameyn marka waa la gab waayo marka intaas waxaa ku caddeynaa inay baraanka tahay micnaha aysa daraamo inay tahay qofka bid'aadanka markaasi serious u caawinaysa waa inaa si weji dhab la soo baxdaa fiiri qof oo aabbiyo xamar joogo oo lacag kambaniga xamar ay taalo $600 diyaanay tahay oo ku dhihi waayo mar oo noo fududeen waayo maama farago 10,000 rabta ma sameynaa ama $10,000 dalbanay qof 10,000 soo dalbaday 9,000 u haaya ana hooyada se ku aqbasho aan wada la yaabanahay hooyada ma la dhihi karaa waa laga dambeeyo hooyada mar walba wuxuu leeyahay 9,000 waxba kama jiro arrintaasna waa dhamaatay waxba kama jiro macnaha xamar aabbiyo jooga ba dil laga caawina $10,000 ma laga caawina laga caawina waa been waa marka ana hooyada hooyada ku suto daayirna lacag ku ma soo wado waxba kama jiro niyadaada isku qancini أنا الشعب يمسك كله شخص يمسك كله ونشيد هيئة الصوص وحلا جرى بقى إنه يحكي بدشه إن شقابون يسمى هيئة حق ولا هذا هاي معناه وهاي أضواء وهي أوده إن شقابون يسمى شقة إسيسو هو إسيسو أي على جرى بقى بشوليد أنا أي سارة مداب بالكون ده مداب ما مضي قرأت كاس إسماعيلين هو سوق الورسنا هيدا أي على جرى وجبات كلهم بتاعنا وعي قبطان wixii caqabada ayaa laga rabaa inay wax qabtaan ayaa laga rabaa muslimiinta hooyana wali waa daba joogtaa maana hooyada waa daba jooga kama haray ninka haray ilaa oo arrintaas meel fiican